weli ma isweydiisay sababta ay gaaladu u yihiin kuwo ku raaxaysanaya nolosha adduunya muslimiintuna ay u yihiin dhibanayaal iyaga la dulminayo mase isweydiisay maxay adduunyadu u noqon weyday mid dhammaystiran oo aan nuqsaan lahayn saddexdan tusaale aan kuu sheegayo waa nusuus rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inoogu tusaaleeyey tusaalaha dhabta ah ee noloshan adduunya maalin maalmaha ka mida isagoo suuqa maraya saxaabaduna ay garbihiisa marayaan ayaa waxa uu soo maray orgi dhukan oo meyda kadibna nebigu intuu qabtay oo sare u qaaday ayaa waxa uu yidhi yaa midkan iga iibsanaya oo dirham iga siisanaya saxaabadu waxay ku dhaheen rasuulkii ilaahayow oo maxaan ku falaynaa oo sidee yeellaa rasuulku waxa uu yidhi haddaba yaa bilaash isaga qaadanaya oo aan iska siiyaa saxaabadu waxay dhaheen rasuulkii ilaahayow markii uu noolaa ayuuba ceeb ahaa waaba isaga oo dhintaya hadal aad u cajiiba ayuu rasuulku naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee uu yidhi waxaana uu ahaa wallaahi laddunya ahwanu cala allaahi min haada calaykum aw kamaa qaala rasuul wallaahi adduunyadu ilaahay way kala liidasho badan tahay liidashada ka liidata midkaas sidaad u liidaysaan ama ilaahay agtiisa adduunyadu way ka qiimo daran tahay sidaad u xaqiraysaan orgigaasi ka daran tusaalaha labaad waxa uu tusinayaa nebigu calayi slat slam waxa uu yidhi low kaanat iddunyaa tacdilu cinda allaahi janaaxa bucuuda maa saqaa kaafiran minha sharbata maa haddii adduunyadu ilaahay agtiisa ay ka dhignaan lahayd garab kaneeco oo ay la qiimaysnaan lahayd gaalba kabasho biyoah kama cabi tusaalaha saddexaad nebigu calayi slat slam waxa uu leeyahay yu'ta waxaa maalinta aakhiro ama qiyaame laga soo saarayaa ahlu jannaha mid ka mida dadkii markay adduunka joogeen ugu dhibaatada iyo fakhriga iyo balanbalka badnaa kadibna hal mar ayaa waxaa lasoo quusinayaa jannada kadibna waxa uu ilaawayaa wixii dhibaato uu soo maray oo dhan waxaa lagu odhanayaa wax dhibaato ah weligaa ma soo aragtay wax mushkiladii kula soo kulantay markaasu wuxuu odhanayaa maya rabbiyo wax mushkiladana ma aan arag wax dhibaato ana lama aan soo kulmin taa cagsigeeda mid ka mid a dadkii markay adduunka joogeen ugu nicmada badnaa ee ugu barwaaqaysnaa ayaa waxaa laga soo saarayaa ahlu naarka kadibna hal mar ayaa waxaa lasoo quusinayaa naarta kadibna su'aal baa la weydiinayaa su'aashaasi waxay tahay weligaa dhibaato ma soo aragtay weligaa barwaaqo ma soo aragtay weligaa nicmo ma la soo kulantay kadibna waxa uu odhanayaa maya rabbiyow nicmona ma aan soo arkin barwaaqana lama aan soo kulmin labadaa qofbaa kan ahlu naarka ah barwaaqadu adduunka ku soo maray waxa uu ku ilaaway hal mar oo naarta la quusiyey kan ahlu jannaha ah ee adduunka ku dhibanaana nimcada jannada ayuu ku ilaaway dhibaatadii uu adduunka ku soo maray waxaan filayaa saddexdaa tusaale waa mid inaga kaafinaysa oo inagaga filan macno darrada